بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. كلنكeenan caawa waxaan insha Allah taala kaga hadlaynaa wixii Ilaahay naga waafajiyana ka dhihi doonaa mowduucii hore loo ilaamiyay dhaantada iyo dhibaatooyinkeeda diineed. munaasabada keentay waxa way kulli wada garanaysaan waa arintaas oo waayahan dambe aadna u faaftay mujtamaca dhexdiisana yar iyo weynba dad badan ay aad u xiiseeyaan mukhalafaad fara badan iyo khaladaad sharci oo badan ay ku jirto isla markaana dadka qaarkood iska fududaysteen oo ay moodeen waxayna shariicadu waxba ka qabin oo iska banaan oo dhaqamadii hidiyaha dhaqanka oo horey loo sameyn jiray haddana aan dhib lahayn. arrintaas waxay keentay inaan baraarujino si dadka cidii galaysana ay u gasho iyadoo og waxay kala kulmayso Ilaahay agtiisa, cidii ka fogaanaysana ay ka fogaato iska ilaaliso. intaana galin qodobada noocaas waxaan ka hormarinayaa bal horta taariikh ahaan dhaantadu xagee ka soo jeedaa inaan wax yar ka yiraahdo iyo say ku gaadhay hadda meesha ay gaadhay. dhaantadu waxay ka mid tahay codka laga maqlayaa meesha dhexe codka hagaajiya. dhaantadu waxay ka mid tahay ciyaaraha taqliidiga ah muxuu ahaayay gobolada Soomaalidu degto qayb ka mid ah laga ciyaari jiray alcab shacbiya la yiraahdaa dhaqan ahaan soo jiri jiray waqti ay soo bilowdeen iyo cid bilowday ma naqaano lama garan karo laakiin iyadoo uu la ciyaarayo la arkay dhaqamo kale iyo ciyaaro kale oo noocaas Soomaalidu ay leedahay waa jirta oo la mid ah sida mesela saarka oo kale iyo shiribka iyo deegaan walba wuxuu leeyahay ciyaaro nooca buu leeyahay oo taqliidi oo la dhaxlay. asalkeedu waxay ahayd intaan aniga garanayo xilliyada barwaaqada ah oo dadka baadiyuhu intay isu yimaadaan isu soo dhawaadaan oo meel soo wada degaan ayay dhalinyaradu habeenkii bixi jireen. waa marka habeenkii xooluhu soo xaroodaan oo la kala seexdo ayay dhalinyaradu bixi jireen. markaasaa banaan koroo meesha guryaha ka yara durugsan ayay isugu tagi jireen. halkaasaa marka lagu dhaanteyn jiray. habeenimo la dhaanteyn jiray maalinimo ma ahayn. xilli dambana way u badnaan jirtay. culimada iyo dadka akhyaarta ee bulshada markay ka war helaan ama qaylada maqlaan iyo sawaxanka intay baxaan bay kala eri jireen. dadkaasina dadna dhaga nugul bay ahaayeen oo marka lagu soo baxo oo culimada iyo akhyaarta iyo ku soo baxaan rag iyo dumar waa la kala carari jiray. marka asal ahaan xusuustayda horta sidaas ay ahayd. waxaa kaloo dheeraa asalkeedii hore bilowgeedii hore midhaha la isticmaalayo iyo mowduuca laga hadlayo iyo waxay ku saabsanaan jirtay iyo waxa hadda ay ku saabsan tahay ama ay ka hadasho isma laha. waaga hore waxay ahaan jirtay dhaantada iyo hadallada iyo macnaha ay wataan iyo wax laga hadlayo ama waxay ahaan jireen faan in la isu faano ama waxay ahaan jireen maalan in ammaan iyo qabiil iyo deegaamo iyo waxaas ay ku saabsanaan jirtay ama waxay ahaan jirtay in la ismaago oo wiilka iyo gabadha isu qabiyo inay ismaagaan
laakiin waxa ka fogaan jiray waxa la yiraahdo ghazalka waxa la yiraahdo jacaylka iyo cishqiga iyo waan ku jeclahay iyo waan ku haraaday iyo wadnahay balbalaya iyo waxaan hadda ay daldalaan ma jirin waaga dadku way xishood badnaayeen yaani ma diin badnayn oo aqoon diineed oo badan maysan lahayn oo waxa laga yaabaa intooda badan ba inayna tukanin laakiin waxa raasikh ku ahaa xishoodkii waa marka dhintay waxa marka soo galay madmuunkii laga hadli jiray ee ciyaarta asal ahaan laga hadli jiray dhaantada waa la bedelay waxa loo bedelay waxaynu arki doonaa insha Allah taala wax kamid tilmaami doona asal ahaan marka saas iska ahayd ciyaarun iska taqliidiya khaladaadkeeda haba wadato gadaal dambe marka maxaa aan bixiyay meelihii ay ku koobnaan jirtay maxaa ka soo saaray maxaa caalami ka dhigay waa su'aasha isweydiin leh waxaa kaloo jira ciyaaro kaleeto oo ay leeyihiin deegaamada kale leeyihiin tan maxaa meesha gaarsiiyay ma kuwa kale ka fiican tahay waxbay la dheertahay markaan dib ugu noqono taariikhdan waa nool lahay inaga nool oo ma garanaynaa waxa heerka gaarsiiyay wuxuu ahaa Ethiopia ciidamada Ethiopia markii ay qabsadeen nimankan Tigreeg oo Ingista ay ka saareen wadanka oo ay Tigreedu qabsadeen deegaamadii dawladii hore Ethiopia ay ka jirin jirto dhan bay damceen inay qabsadaan kadib deegaamadan Soomaalidu jabhada kacay oo ka hortagay oo dalka inay xoreeyaan oo ka xoreeyaan Ethiopia u istaagay jabhadahaasi waxyaalaha ay isticmaaleen waxa kamid ahaa qaar kamid ah si dhalinyarada iyo dumarka iyo ay barnaamijkooda uga dhaadhiciyaan oo ugu soo jiitaan ayay dhaantada isticmaaleen tiimam iyo dhaanto iyo dadkan muxuu ahay deegaanka daga si ay barnaamijkooda u geliyaan meeshaasi waxooga qaabkii hore ahaan jirtay baasha way ka yar baxday waxay yara qaadatay jid kale iyo qaab kale yara qaadatay jabhada qaatay way yara caalimooday waxa dhacday dagaalkii jabhadaha iyo ka dhaxeeyay ciidamada Ethiopia markay muddo socdeen Ethiopia waxay dawladeedu qaadatay dawlad goboleedyada kililada intay ciidan u dhisto ciidanka isaga inay qabtaan hawsha ku saabsan la dagaalanka jabhadaha ciidanka federaalkuna inuu iska nasto meeshii gurmad looga baahdo inuu gurmado oo taageero waatan marka kililada loo sameeyay mid walba muxuu ahay ciidamo u khaas kan Soomaalida loo sameeyay liib booliska waxay dhahan waxay noqotay marka dagaalkii inuu isu rogo jabhadii meesha ka dagaalamayay iyo wiilashii isla deegaanka u dhashay oo magac liib booliska wata inuu dagaalku muddo dheer dhex socdo dawladii meesha ka jirtay marka dawladii kililka ahayd ee jigjiga ka talinaysa ninkii jiray oo madaxweynaha ka ahaa Cabdi Maxamuud Cabdi Ilay caanku ah ayaa waxay marka qaadatay ciyaartan ay jabhadu ku caanamaashay oo ay dhalinyaradii iyo dadkii ku kaxaysatay intuu kala soo wareego inuu asagu ka dhigo mid uu iyaga ku garaaco oo dhalinyaradii iyo wiilashii iyo gabdhihii iyo dhaanta wax inta loo sameeyo telefishinka laga baahiyo tartamo loo sameeyo ciyaarta in laga la soo wareego ficlan sidii baa dhacday ciyaartii isagii baa la soo wareegay wax kasto awood dawladdu ay lahayd oo dhan buu marka galiyay halkaas marka waxa timid markii hore cala mustawa jabhad bay ku joogtay markii dambana waxay noqotay cala mustawa barnaamij dawladii ay tabanido dhaqaalaheedii iyo qalabkeedii warbaahinta iyo awoodeedii iyo ay isugu geyso inay dhaantada banaanka u soo saarto oo ay ka dhigto muxuu ahay barnaamij ay yani dawladdu wadato oo ay fangareynayso isla dhanka kale waxa iyadana ka jirtay in dawladdaasi maadaama dulmigeedu badnaa oo dadka
ama dulmiga ku jira ama nidaam xumada ama musuqmaasuqa ama dhibaatooyinkeeda si ay u qariso in dadweynaha loo jeediyo wax la yiraahdo lagu maaweeliyo ciyaar wax la yiraahdo dawladahuna dhaqankoodu sidaas waay markay dawladdu faashil tahay ama daalimad tahay ama aynan cadaalad haynin ama musuqmaasuq ku salaysan tahay si shacabka ay isaga jeediso inta badan shucuubta waxa lagu maaweeliyaa waxyaalaha ciyaaraha marka qayb ay ka ahayd ujeedadeeda sidaasay marka ku caanbaxday dhaantadu markii hore way xadidnay laakiin markii dambe way caanbaxday markii dambe waxay noqotay in loo sameeyo tartamo waaweyn oo abaalgudyo waaweyn lagu bixiyo 2014 waagii aan mari jiray kililka maray oo Soomaaliland uga gudbay hadana Puntland uga gudbay 3 bilood safartii aan ku mari jiray ayaa waaga waxaan maray iyadoo ay socoto wax la yiraahdo tartanka dhaantada mid kamid ah waxaan isugu nimid magaalada la yiraahdo Fiiq 3 habeen baan joogay markaan magaalada tagay ayaa waxa magaalada soo galay tiimamkii tartansiinayay dhaantada rag baaba ku takhasusay baashay u kala fiican tahay iyo qawaaniinka lagu tartansiiyay iyo dhalinyaro yaryar ciyaal yaryar oo ubaxo kacaya ayaa marka la tartansiinaya dhaantadii lagu tartansiinaya meesha anaga masaajidkan muxaadaro ku haynay meel weyn baa loo ooday dadkii oo dhan baa bulshadii baa isugu timid waa la daawanayaa xagamkii iyo galsooriyaashii baa halka fadhiya jawaa'iz waaweyn iyo abaalgudyo waaweyn bay dawladdu u diyaarisay dhaantada cidda ku soo baxda in la siiyo marka baashu halkaas ay soo martay siyaasad baa gashay waxay ahayd markii hore ciyaar iska taqliidiyo hidiya dhaqan iska ahayd oo iska koobnayd laakiin markii dambe waa la siyaasadeeyay siyaasad baa marka soo gaarsiisay heerka hadda aad aragteen markii dambana waxoogaa qaabkeeda markii laga yar helay Soomaaliya oo dhan baa wada qaadatay xamar baa muxuu ahay xamar baa dirgax laga hayaa oo Hargeysa dirgaxlaynayso muxuu ahay meesha Nairobi iyo Garissa baa dirgaxda lagu hayaa oo baashi tagtay حتى ololayaasha doorashada arkaysa ololihii doorashada ee caadiga loo gali jiray dirgaxdaas ka socota marka waxay noqotay hawl culus oo u baahan in umada loo muujiyo ruuxani muxuu yahay xagee ka yimid muxuu xambaarsan yahay waxa laga yaabaa dad fara badan oo ku ibtilaysan heesaha oo kale inaysaas oo kale ana u dhageysan oo ilayeen heesu waa xaraan oo heesii hadad ka tagteen tani maxay kaga duwan tahay ma tan waa hidiya dhaqan waa ciyaar iska dhaqan waa marka waxoogaa in la dul istaago la cadeeyo waa laga maarmaan intaasi waa hordhac yar oo ku saabsan xagee ka tiimsayso ku timid ujeedadan kale ee muxaadaradu waxa weeye kelimadu macdiratan ila rabbikum in ilaahi tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamada waxaan iyo munkarkan maxaa wax looga dhihi waayay cudurdaar inaan ilaahay agtiisa ka helo talabaadna waxa weeye walacallahum yattaquun inuu dadka qaarkood ilaahay ku anfacana waa suurtagal saddexaadna waxa weeye shayga haddii sidiisaba laga aamuso oo intuu bulshada ku faafo loo aamuso marka dambe wuxuu noqdaa caado adag oo dhalinyaraduna ku barbaarto odayaashuna ku duqoobaan hadhowna ay noqoto caado la gooyo cadho allay leedahay oo ay halkaa marto munkaraadka marka laga aamuso sharci bay noqdaan oo bulshada agteeda waxay ka noqdaan cidda ka hadashay diida marka dambiile noqoto heerka marka intaysan gaarin munkaraadka ama hal la qaato ama yaan la qaadanin laakiin waxa laga maarmaanaa in bulshada lagu baraarujiyo mar walba lagu celceliyo laga hadlo xataa haddaan la qaadanin waa in dadka lagu baraarujiyo waa inay la ogaado inay munkar tahay in khaladaad ku jiraan inay diinta ka soo horjeedo yani wax way saysan wixii sharci u noqon وكي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه وكيلها كيف أنتم إذا لبستكم فتنة حالكي نسين نقون دونا مركي إذن قبسطوا فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير كي دأد هانا وكتو قوبو كي دأد ياري دلين رضا هانا وكبر بارو ويتخذها الناس سنة تدكون أي كدكتان عاداء أي كدكتان فإذا غيرت قالوا غيرت السنة
haddii markaa la bedelo cidi ka hadasho dadku waxay leeyihiin sunnadii iyo caadadii iyo dhaqankii baa la bedelay markaasaa waxaa lagu yidhi oo abu cabdiraxmaanow taasi goormay dhici doontaa wuxuu yidhi idaa kahurat quraa'ukum waqallat fuqahaa'ukum wakahurat umaraa'ukum waqallat umanaa'ukum waltumisat اddunyaa bicamali اlaakhira arrintaasi waxay dhici doontaa marka dadkiina wax akhriya ay bataan inta wax akhrin karta way badan tahay waqallat fuqahaa'ukum dadkiina fuqahada ah ee fahamka saxda ah leh ay yaraadaan wakahurat umaraa'ukum madaxdiinnuna ay bataan waqallat umanaa'ukum dadkiina aaminka ana ay yaraadaan waltumisat اddunyaa bicamali اlaakhira camalkii aakhira lagu raadsan jirayna oo ilaahay ajri iyo janno lagaga raadsan jirayna adduunyo lagu doono kuraasteeda iyo xoolaheeda iyo magaceeda xadiidkaasi culimmadu waxay leeyihiin daahirkiisu waa mawquuf calaa cabdillaahi bn mascuud laakiin waxay leeyihiin xukmu rafci buu leeyahayo waxyaalahan mustaqbalka imaan doona waxyi unbaa lagu sheegi karaaye wuxuu isagu jeebkiisa ka keensan kara ma aha marka waxaan ujeeddada ka wadaa sunno iyo caado bulshadu ku dhagto oy u aragto xalaal bannaan ciddii ka hadashana la qoonsaday noqoto ayay noqdaan munkaraadku haddii laga aamuso marka waa in laga hadlo oo la inkiro oo dadka laga waaniyo oo muxuu laga wacyigeliyo waaye qaadashadu ilaahay bay la jirtaa ciddii qaadanaysa inta haddaan ka soo gudubno aan mawduuca u soo gudubno lubbigiisa dhantadu waxaa ku jira wax ka badan 20 dhibaato ama 20 mukhaalafo oo shareecada khilaafsan wax ka badan baa ku jira si kooban haddaan u dulmar waxaa ka mid a almacaazif وآلات اللهو موسيقى iyo kamanka loo garaacayo waa xaraan waana bidcooyinka lagu soo kordhiyay dhaantada shay walba soo bidca ma laha waa bidcooyinka dhaantada dhaantadii hore asalka ahayd ee hidaha ahayd ma lahaan jirin wax la yiraahdo muusig ma lahaan jirin muusiguna meeshuu galaba waa xaraam nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaa cadeeyay xadiidka fi sahih al-bukhari abu malik al-ash'ari abu amir wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif ummadayda waxa ka mid noqon doona dad xalaalaysan doona zinada iyo xariirta iyo khamrada iyo macaazifta waa aalaatu lahwi sida culimadu isku waafaqsan yihiin aalaatu lahwi waxa weeyaan waxyaalaha la garaaco muxuu ahaay muusiga iyo wixii la mid ah oo marka la ciyaarayo la garaaco waxa la yiraahdaa macaazif dad banaysta ayaa imaan doona nabiga sallallahu alayhi wasallam dad banaysta imaan doona macnaheedu maxay tahay macna waa xaraan waay dad baasi aakhiru zamaanka banaysan doona wuxuu nabigu intaa ku daray sallallahu alayhi wasallam wala yanzilanna aqwamun ila janbi alam dad baa waxay degi doonaan buur dhinaceeda yaruuxu alayhim bisarihatin lahu xoolahooda u soo dheelmanaya markaas waxa uu iimaanaya ruux faqiir oo baahan markaas waxay leeyihiin irji ilayna gadan irino soo laabay leeyihiin fayubayituhum allah ilaahi ba tabaaraka wa taala habeennimada cadaabkiisa iyo halaag ku keenay wala baabiinaya wayad'u al-alama buurti agtooda ahaydna waa la burburin wayamsahu akharina qiradatan wa khanazira ila yawm al-qiyamah qayb iyaga kamidana ama kuwa kalena alla wuxuu u bedelayaa daanyeero iyo doofaaro ayuu ilaahi ka dhigaya xadiidka bukhari waxa soo saaray ibn hibban iyo tabarani waana xadiis saxiixa waxa riwaayaadka xadiis kale waxa jirta badan oo macnaha tilmaamaysa oo iyaguna ka hadlaya aalaadkan la tumo muusiga iyo wixii la mid ah xadiista qaar kamid ah waxay tilmaamayaan sababta keentay in la bedelo oo dadka iyaga doofaaro iyo loo bedelo daanyeero sababtu inay tahay dumarka heesa
ama dhaanteeya ama muxuu ahaayey ku luqeeya yani waxa weeye waxaan la yidhaahdo waxa baabkaa ku yimaado biitikhaadihim alqaynaat wa shurbihim alkhamr yani waxa weeye khamrada cabitaankeeda iyo dumarka noocaasa samaysigooda buu nabigu sal alay wasalam xadiid kalaa jira anas ibnu malik oo isaguna macnaha tilmaamay nabigu leeyahay sal alay wasalam sawtaani malcuunaani fi dunya wal-aakhira laba dhawaq adduunya aakhiraba waa lacnadan yihiin mizmaarun cinda nicma wa rannatun cinda musiiba durbaan la garaaco markii barwaaqo la haysto ciyaaraha iyo muxuu ahay durbaanada iyo muusiga marka la ladan yahay barwaaqada iyo nabadda la haysto la garaaco warannatun cinda musiiba iyo dhawaqa iyo qaylada iyo baroorta markay musiibadu dhacdo labadaas sawdba waa malcuunaan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidka bazaari qeyrkii baa soo saaray lafdi kaluu ku yimid ama wuxuu ku yimid riwaayo kaloo xaakim iyo bayhaqi ibn shaybi soo saareen oo nabigu sallallahu alayhi wasallam waxaa la iga reebay oohinta iyo baroorta oohinta caadiga la igama reebin markay musiibadu dhacdo inuu ruuxu ilmeeyo laakiin waxaa la iga reebay nabigu sallallahu alayhi wasallam can sawtayni ahmaqayni fajirayn laba dhawaq oo doqoma ah oo faajir labaduba faajir yihiin oo dariiqa ka baxsan yihiin oo khaldan yihiin sawtun cinda nicma markaad barwaaqaysan tahay dhawaaqa oo muxuu yahay lahw iyo lacib wa mazaamiru shaytaan durbaanka shaytaanka oo muusiga ah iyo ciyaarta xilliga la sameeyo barwaaqada waxaa la sameeyaa inta badan markay barwaaqa jirto laana asalkeedii saas u ahaa markii ay jir abaara iyo dhibaatooyin ay jiraan dadku way kala cararaan laakiin markay barwaaqa timaadaan la isla soo dagaan la isu yimaadaa markaas la dhaanteyn jiray haddana dad ciyaaraha haddaad aragto waa maray barwaaqaysan yihiin waa mar la ladan yahay la nicmaysan yahay nabad lagu dhaanteeyo la hayo nabad lagu heesa la hayo muusiga la ciyaaro laakiin markay nicmadu meesha ka baxdo musiibo timaada kala carar baa ka dhici Soomaa nicmadii ilaahay la rabay in laga shukriyo ayaa shukrigeedii waxa lagu bedelay dhawaqan iyo qayladan malcuunka nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu wuxuu tilmaamayaa xadiista ku sheegaya muusigu meelu galaba inuu xaraan yahay culimada badankoodna sidaasay qabaan oo ay kamid yihiin afarta aimada ah asxaabul madaahibka imaam abu xaniifa malik shafi'i ahmed ibn hanbal iyo غيرkood muusigu meelu galaba waa xaraan طيب taawamid oo waa dhibka koobaad ee ciyaarta ku jira oo ah muusiga la socdo dhibaatada labaad ama yaani shayga labaad ee xaraanta ah waa isjijabinta iyo iswaraariga iyo wiilasha iyo gabdhuhu ay sameynayaan ragana looma ogola dumarkana looma ogola haday dumar tahayna ka wasi daran حتى waxa ay ku dhawaaqayaan dadku haduu yahay wax macna ahaan saxsan yahay laakiin isjijabinta jidhko la jijabiyo iyo jidhko la laalaabo iyo muxuu ahay daaniska waxa la yiraahdo jidhko la ruuxo si ahaantiisu xaraan u yahay waxa jiray حديث بيهقي وبخاري وصوص بيهقي نصوص صار بخاري نو هذا منفرد كوكا يعني بسند حسن عائشة رضي الله تعالى عنهما قبل أي دؤته أيال لجودي مركي لجودي بقى وحوا ويرحم وصدين مركا عائشة وحلوير يا المؤمنين ألا ندعو لهن من يلهيهن ما نقول يرنو عيد قبلها وحوا ما ويلسه سو حوا حنون كان هي وحوا وقت الله ضافيه markaasay tiri bala ugu yeeray tiri xoogaa cid ma weeliso hadii loo heli karo waa gabdho yar yar oo markaa la guday waa fa arsalat ila fulan almughanni ni waxa jira markay heesi jirayo durbaan iyo waaga lama tubi jirin laakiin midhuhu tirin jiray waa ku sawdayn jiray oo ku codayn jiray bil munasaba hadii yani hadalka la tirinayay nadmiga tixda hadduu sanka music la soconin
macnihiisuna uusan macna xaraam ahayn sawdaynta lagu sawdeeyo codaynta lagu codeeyaa dhimala markaa يعني وحوي الشعر كنبي مركو كهل جبيجا وحلا وحي النظمي أولا نبي يقول صلى الله عليه وسلم وهذا الأكل وهاي كيس وناكسين معنى وناكسن حنبارسنا وناكسين هاي كمعناها حن حنبارسنا وحن يهي النبي صلى الله عليه وسلم وسيد هذا الكعادي وكل وهاي مركا وحوي نيم بالله يا ري ضدكي قاعد يشتري كم ذا ويجي من مركا نينكي قبله يا ري رئيس سوق ما ويلني أيا عائشة صومرتي markaas waxay aragtay isaga oo sawdayntii iyo codayntii ku daraya madaxa ruuxaya madaxa saako hay madaxiisuna uu timo badnaan jiray nin timo badan oo timuhu raaracaan u ahaa marka madaxu ruuxaya timihiina waa la ruuxmayaan gabdhihii yar yaraana uu ma weelinay Aisha soo martay markaas waxay ku tiri uffin shaytaanun akhrijuhu bayt uff baa la yidhi bayt waa shaytaan bixiya bayt hawshii loo keenay gabdhaha yarka inuu ma weelay Soomaaliya muxuu ku daray ya isruuxid iyo madax ruuxid iyo hawlo kale uu keenay Soomaaliya Aisha waxay tiri waa shaytaan kan meesha ka saaran marka raqsiga iyo isruuxidu si ahaantiisa markii ciyaar noqoto si ahaantiisa ayuusan u fiicnayn waa mukhalafad dhan sideeda marka mid labaad weeye dadku markay ajnabi kale yihiin oo wiilal iyo gabdha ay yihiin oo haddana ay isruuxahayaan mafaatintii jidkooda ayaa isu muuqanayo bitaali waxay noqonaysaa wasiilo kamid ah wasaaisha fitnada iyo aafada iyo dhibaatada faafiso kamid noqonaya dhibaatooyinka ku jira waxa kamila ishtimaaluha ala kashf al-awraat gaar ahaan dumarka iyo hablaha dhaantada tumayay way qaawan yihiin dhar waxay qabaan loo bixiyay waa dharkii hidaha dharka hidaha waa dharkay Soomaalidu xiran jirtay ama dhar yariha ugu wacnaato oo waga dharba lama haysaninba raguna qeyd iyo go' bay qabeen go' tunka la saartay qeyd hoosta laga xidho gabdhuhuna intaas haba dhar u ah ama tabartiya dhar yariha u geyso ama dhaqanka diineed oo iska yaraaba ha u geeyo oo gabdhuhu jirkoodu waa iska qaqawanaa qaybahan koriyo waa iska qawanaa intay asturi jireen waa intan muxuu ahay naasaha iyo intan hoosii bay asturi jireen laakiin gacmooda iska qawanaa luqunta iska qawan marka timaha way iska qawanayeen marka dhaqankii nooca iyo labiskii nooca ah baa loo hiloobay waxa la yiri hidiye dhaqan baynu lahaan jirnay gabdhihi dumarka loo xiriyo hidiye dhaqankii war hidiye dhaqan jaahiliya dib aan ugu celinine diin baa timidoo dadku diintoodii bay garteen oo xijaab bay qaateen oo amarka Ilaahay bay qaateen inaad jaahiliyad dib ugu celisaan inaad jaahiliyad dib ugu celisaan oo hidiye dhaqan aabayaashin iyo ayeeyooyinkii baa lahaan jiray oo aday lahaan jireen way qaldanaayeen maxaa naga noogay waaba laga soo tago dhar baa la helay adduunku wax soo furmay waxaas dadka waxa looga dhigayaa marka wax khatar ah oo halis ah oo muxuu ahay lagu ma weelinay culimadu waxay isku waafaqsan yihiin nusuusta quraanka iyo sunnadana laga qaadan haweenta muslimadda amarba haday qaan gaadho awradeedu waa jirkeedo dhan waxa laga muransan yahay wax weeyaan wajiga iyo labada kaf ma banayn kartaa mise ma banayn karto shirka intiisa kale inay awrad tahay oo inay asturta ay laazim tahay quraankuna wuu ku tusay sunnaduna way ku tustay culimaduna isku waafaqsan yihiin marka laga hadlayo awratul mara saas daraadeed baa fiqigi shaafiiciga ya wahabiya keenta sidaan u dhihin fiqigi shaafiiciga ay wadaadadu inoo akhrin jireen muxuu ahay guriyaheena yaal meesha ugu horeysa safiinaha iyo shujaaca halkaas ay ka soo bilaabaan awratul mar'ati jamii'u badaniha illa alwajh wal kaffayn soo saas ma dumarka awradoodu waa jirkoo dhan wajiga iyo kafaynka mooye soo saa kuma ol ya keenay marka war wadaadadii cusbaaba dumarkii mara saaray bay kulay warma Ilaahay baa halka dhigay awrada oo la baneeyo gaar ahaan dumarka awradooda la baneeyo
fitne ka weyn oo bulshada ku timaadaay ma jirto fitanka ugu weyn oo bulshooyinka qabsada waa in cawraadka la baneeyo shaytaanal aabaheen iyo hooyadeen xawaa iyo aabaheen aadam alayhi salaam markii uu geedka cunsiiyey wixii ugu horeeyay uu rabay inuu ka gaadho waxay ahayd inuu cawradooda baneeyo ilaahay quraanku inoo sheegay fawaswasa lahum ash-shaytaanu liyubdiya lahumā mā wuriya canhumā min saw'ātihimā shaytaan baa waswaasiya xaawiya aadam si uu wixii qarsoonaa iyo cawradoodii u muujiyo saas daraadeed baa rabbigan tabaaraka wa tacaala inoo digo wuxuu yidhi yaa banii aadama laa yaftinannakum ash-shaytaanu kamaa akhraja abawaykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw'aatihimaa war caruurtii aadam iyo xaawa dhaleenow shaytaan yuusan idin fitnaynin dharka yuusan idinka dhigin sidii aabihiin iyo hooyadiin intuu dharka uga dhigay jannadana uu ka soo saaray idinkana yuusan idin yeelin isilaaliya ilaahay baa inoo digaya tabaaraka wa tacaala ujeedada ugu weyn marka ibliis uu leeyahay waxa weeye inuu dumarka dharka ka dhigo ragga qaawiyo dadkii marka waxa weeyaan dhalinyaradii iyo dadkii isku fitneeyo tii iyadahayd baa marka lagu dhacay dabinkiisa lagu dhacay gabadha muslimadda ah inay asturan tahay quraanka ilaahay inoogu sheegay yaa ayuha nabiy qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudnina 'alayhinna min jalaabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dayn dumarka mu'minaadka ah nabiga lagu yiri sallallahu alayhi wasallam xaasaskaaga gabdhahaaga iyo dumarka kale mu'minaadka ah mu'miniinta dumarkooda u sheeg marada isku sidaaya jilbaabka waa marada weyn ee ka koreysa maryaha kale taasaa u dhow in la garto oo aan la dhibin waa dumarkii lagu yiri walaa yubdiina ziinatahunna illa ma dhahara minha cawradooda iyo quruxdooda yeyna muujinin illa wixii iska muuqda mooyee dumarkii ilaahay ku yiri way dumarkaas waa dumarkii alla ku yiri walaa tabarrajna tabarruj al-jaahiliyyati al-uulaa jaahiliyadii hore ee diin la'aanta ahaa dumarkoodu siday quruxdooda u muujin jireen oo kale jidhkiina quruxdiisa ha muujinina astura dumarkii ilaahay ku yiri way dumarkaad arkaysaane ragga hor taagan ee isruxaya ee qaqaawan dumarka aan jidhkooda asturin oo amarka ilaahay jabiyay oo amarkii rasuulka jabiyay oo bulshada fitnadii inay fitneeyaan daayirtay dhalinyarada dharka u dhigtay kuwaasi jannada ilaahay geli maayaan حتى هذه صلاة يصوني عبادات كل إنسان نبي وحول نوشيغي انت أي سميين إنه كفلنتها إنه جنة وقادان في صحيح مسلم وحاكو سوغان من حديث أبي هريرة النبي يقول صلى الله عليه وسلم لبا قيبوض بن آدم ككمد وأهل النار منع أركينه ولي ميسان إيمان بن صلى الله عليه وسلم ييهن قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ضدوة أولوة oo saynta loodo kala dadka ku garaac qolada labaadna waxa way wanisaa'un kaasiyatun aariyatun mumilatun ma'ilat dumar maryaqaba hadana qaawan ayaguna leexsan dadkana leexiya ama jidkooda qayba kamid ay leexleexinaya ru'usuhunna ka'asnimati al-bukht al-ma'ila madaxooda siday muxuu ahay wax u galgaliyeen oo u weyneeyeen oo waxaad moodaabu nabi sallallahu alayhi wasallam u ogyihiin sida hasha kuruska weyn ee kuruskeedu leexsan yahay oo kale yaani umaamado iyo maryo iyo karimo iyo waxbay madaxa gelinayaan markaas ay madaxa tuurayaan waa style-kii hore ee dumarkii intaan muxuu ahay xogaa baraarugan diinada u san dhicin dumarka Soomaalida qaar kamid qaabka saa u labisan jiray haddana habraha waaweyn qaar baasaas kuwa inta badan Yurub iyo ka yimaadeen aan diinba gelinba oo meelaha yimid arki tuur weyn oo madaxeedaba ka weyn baad moodi oo saaran baad arki kaasnimati al-bukht al-ma'ila way nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam sida hasha kurus kale ee kuruskeedu leexsan yahay oo kale iyo madaxoodu u yaala nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la yadkhuluna al-jannata dumarkaasi jannada gali maayaan wala yajidna riihaha عرفت جنتنا هلي مايان وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا
urka jannadana iyo carafteedana waxaa laga helaa marka loo jiro socdaal intaa iyo intaa meel fog markaad u soo jirto ayaa saxada iyo carafta jannadu dadku ay helaan kuwaas inay janno galaan iska badaaya xataa carafteeda heli maayaan u soo dhawaan maayaan way macnaha yeeyihiin dumarka dharka xidhan ee haddana qaawan culimadu waxay leeyihiin dhar aan jirkeeda wada gaadhaynin bay qabtaa jirkii qaar baa bannaan wayna labisan tahay wayna qaawan tahay ama ma ahe maryaha ay qabto jirkeeda ma asturayaane waa khafiif oo jirkii baa ka muuqda wax mara magac leh magac maradiisa labay qabtaa haddana jirkii waa qaawan yahay dumarkaasi nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wali mayna imaanin waysa imaan doonaan jannada geli maayaan buuro carafteedana heli maayaan gabadhan marka qaawanay dhaantaynaysa ee isruxruxaysa ee aafaysan ee la lugooyay hadday sidaa ku dhimatay aysan toobad keenin soo halis ma xadiidka nabiga xagee ka mari marka isqaawinta iyo cawradoo la banneeyo ragga ajaanibta khaasatan hortooda waa kabiira min kabaa'ir dunuub dambiyada waaweyn bay ka mid tahay mukhalafaadka iyo dhibaatooyinka shariicada khilaafsan ee dhaantada ku jirayna kow ka tahay waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ku jira shariicada khilaafsan al-ikhtilaat bayna al-jinsayn ragga iyo dumarka isku dhex jira shariicadeenu waa shariicad dahaaro waa shariicad nadaafadeed waxay doonaysaa mujtamac nadiifa iyo guryo nadiifa iyo rag iyo dumar nadiifa dad daahiray iyo mujtamac daahiro nadiifay iyo bulshada iyo diintu dhistaa si tahaarada loo ilaaliyo ayaa waxa la kala fogeeyay rag iyo dumarka xataa goobaha cibaadada oo loogu baahi badan yahay ayaa la kala fogeeyay ciidoo kale marka la isu soo baxo nabigu sallallahu alayhi wasallam dumarka gadaal bay fadhiisan jireen meelayna xataa nabiga khudbada uu jeedinaya ayna ka maqlaynin garaysa xadiidka saxiixeenka iyo ku yimid nabigu sallallahu alayhi wasallam markii ciidda la tukado ragga u khudbeeyay dumarku khudbadii maysan maqleen xaggay joogaan markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu timid buu iyagiina khudbo kale u jeediyay meesha ugu tagay masaajidka oo kale markay dumarku ku tukanayaan waa kii nabigu sallallahu alayhi wasallam gadaal mariyay ee waliba haddana yiri ragga markay isla tukanayaan ragga iyo dumarku safka ragga waxa ugu khayr badan ka u horeeya safka dumarkana waxa ugu khayr badan ka u dambeeya waa goormo waa markay wada tukanayaan maxaa loo yiri laana safkooda u dambeeya raggii buu ka fogyahay ragga u horeey safkooda u horeeyana dumarkii buu ka fogyahay labada jinsi markastoy kala fogaadaan waxa ku jirta dhowrsoonaanta iyo nadaafada iyo tahaarada bulshada ku jirta haddii ay isdhex galaan oo istiraxaan oo xawaajista iyo kala ilaashanaantu meesha ka baxdo waa meesha marka fasaadku ka bilowdo waana mid shariicadu ka degayso markuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal min an-nisaa hadith sahihanki ku yimid hadith Usama ibn Zayd nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam gadaashay kama tagin fitno ragga uga daran dumarka buu nabigu sallallahu alayhi wasallam fitno xoolo kursi yani wax kasto ragga ku yimaado fitna fitnada ugu darani waa fitnada dumarka kaga timaada buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa kale xadiidka Abi Sa'id al-Khudri nabigu sallallahu alayhi wasallam fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa ad-dunya iska jira dumarna iska jira fa inna awwala fitnati bani Israa'ila kanat fi an-nisaa fitnadii ugu horreysay reer bani Israa'il ku dhacday dumarkay ka bilaabatay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam hadii marka dumarkii la asturi waayo oo la xijaabi waayo oo la ilaalin waayo oo iyagiyo dhalinyaradii raggii la kala ilaalin waayo aafa halkaas ay ka bilaabataa fidna ka weyna ma jirto saasuu nabigu tilmaamaya sallallahu alayhi wasallam sidaas daraadeed wiilashan iyo dhalinyaradan isku dhex jira ee isku qasan ee haddana qaaqaawayin dumarkii ee muxuu ahay leysdhex mulaaxayo waa mukhalafa sharciyo waa wax shariicada aad uga soo horjeeda dad muslima oo ilaahay rumaysan oo rasuulkiisa rumaysan oo quraanka rumaysanna wax ay yani wax weeye ku dhiiradaan waa wixii la iska ilaalin lahaa xadiidka dambana muslim baa soo saaray
waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ku jira dhaantada oo shareecada ay ku khilaafsan tahay ikhdaacu alqowl min annisaa hadalka dabacsan ee dumarka hadalka asal ahaan dumarka ay ragga la hadlayaan ama danahooda ku gudanayaan asal ahaan sida saxiixa ah hadalka dumarku cawro maaha inay adeegato ragga la hadasho oo danaheeda qabsato oo dukaanka ka adeegato isbitaalka ka adeegato ay hadasho oo hadalkeeda la maqlaay asal ahaan cawro maaha cala saxiix laakiin hadalka inay jijabiso oo jilciso oo dabciso oo uu noqdo hadal fitna abuuraya ama fitna sabab u noqon karaya ama shahwada kicinaya bil ijmaac hadalka noocaas waa xaraam hadalkaas marka waa hadal fitna abuuraya waa hadal qariisadii iyo dareenkii kicinaya markaasoo kale marka waa marka ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala falaa takhdacna bilqowl fayatmaca alladii fii qalbihi marad hadalka ha dabcinina oo haddaad dabcisaan midkii qalbiga ka jiranaa buu damac galayaa ya adiga waraabo gaajaysan haddaad hilib ku hor wado muxuu samaynaa soo haliili maayo nin qalbigaba ka jiran oo sakaraad ah haddaad intaad adiguna hadalka jajabisa aad waan ku jeclahayey naf baa i haysaay waa ku baadigoobahayey xageed gashayey layaa sariir kula seexdaay maantana aad ku hayso aadna gabadh tahay jidhkaaguna qaawaye soo fidna maaha falaa takhdacna bilqowl allah hadalkaa wuxuu u jeedinayaa xaasaskii nebi maxamed sal alla alay wasalam ma cid ka dahaaro badan baa jirta ma cid ka ilaashanayd baa jirta waa dumarkii nebi maxamed sal alla alay wasalam ummahaatuna waa ayuu alla ku leeyahay falaa takhdacna bilqowli hadalka ha dabcinina fayatmaca alladii fii qalbihi marad ninka qalbiga ka jiranee shahwadu ku jirtaa markaa damac galayaa soomaalit waqulna qowlan macruufa hadal wanaagsan ku hadla oo aan jajabin iyo jilcin iyo dacsanaan lahayn marka iyadana waa xaaraam bal dhaantadu maba asaxdaba haddaan gabadh ku luuqaysa la helin weligiin miyaad aragtay in dhaanto ay rag keliya isu tumahayaan waxaan hadda dhaantada loo yaqaan ma jirto waa in gabadh luuqayso oo u jawaabto oo muxuu ahay ka daba qaado oo la helo waay oo hadalka iyada lafteedu muxuu ahay soo jiidata ragga soo jiidata in la helo waay saasayba ku arkaanu sixatiha bay ka mid tahay si kaleba ku asixmayso sidaas daraaddeed muxaramaadka ay xambaarsan tahay bay ku jirtaa waxaa ka mid a muxaramaadkay dhaantadu xambaarsan tahay akhlaaqdii iyo qiyamkii bulshada ayay baabi'inaysaa gaar ahaan akhlaaqda way sii kala muhiimsantahay iyadoo wada muhiimsan nabigeennana sal alla alay wasallam loo soo saaray inuu akhlaaqda dhammaystiro haddana way sii kala muhiimsan tahay kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a xishoodka inuu ruuxu ilaahayna ka xishoodo addoommadana ka xishoodo qiyamka bulshadu ay leedahay waay bulsha markay akhlaaqda weydo oo xishoodka weydo oo tahaarada weydo bulshadaasi waa ku dhammaatay inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat ummadii intay jirto waa uun akhlaaq khaasatan bulshada muslimka markay akhlaaqdu lunto bulshadaasi ma istaahisho inay sii jirto waa inay baaba'do waay sunno ilaahay waa gaar ahaan waxaan nidhi khuluqulxayaa oo nabigeenu sal alla alay wasalam uu ku tilmaamay alxayaau min aliimaan xadiid culimada qaarkood turuqdiisa bimajmuuci turuqya ay ku taxsiininayaanna wuxuu nabigu leeyahay likulli diinin khuluq wa khuluqu hada diin alxayaa yani diin walba akhlaaq bay leedahay akhlaaqda islaamka iyo diinta islaamkuna waa xishoodka xadiidka abu mascuudin albadrina waa kii ah fi saxiixi albukhaari nabigu yidhi ina mima adraka annaasu min kalaami alnubuwati aluulaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shiita hadallada murtida ah ee nebinimadii hore ama nubuwadii hore laga soo gaadhay waxaa ka mid a haddaadan xishoonaynin waxaa doonta samee sariigtii xishoodku hadduu ruuxa ka dhammaado rag iyo dumarba wax walba ka fila way marka wax haba yaraatee ka reebtoon ma jiro marka xishood darradaasi iyo akhlaaqdaa dhimanaysaay waxay ku imaanaysaa
faaxishadan ay ku dhawaaqayaan iyo rag iyo dumarkan isku dhex jira iyo qaabkan ka hawsha loo wado khuluqi akhlaaqdi iyo dhaqan wanaagii iyo hidihii fiicnaa ee bulshadu lahayd ayaa la baabi'inaya ama meesha ku baaba'aysa waxa kamida dhibaatooyinka ay dhaantadu xambaarsan tahay aljahru bisuu wa i'laan almunkaraat xumaantii oo lala banaan baxay iyo wixii shariicadu khilaafsanayd oo يعني وحويان أمام الملأ ذاتك هرتيسا الله سمينا يولا جلي الله نقران كريم كوحو كله هي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حمانتو يدن بيدو مركي قرصويهين وحي دبان أو كليتا روح سمينية لكن دنبيك مركي بنانك الله صودكتو أو بنانك الله صوبحو أو ورباهينتي صوقلو تلفزيونadii social media dadka dhaxooda ku faafo oo la wada daawado oo la arko markuu saa u faafo kale bulshada ku imtixaanan markaas ruuxii sameeyay kaliya ku ekaan maaye dibku markaasi dadka waa wada gaaraya sidaas daraadeed baa nabiga wuxuu leeyahay kullu ummati mu'afa illa almujahirin ummadaydo dhan waa afis mu'afa waa إلا كوا الدنبية ذا موجستمويه يعني وحوي يدو الدنبي أي وضطاه هذا الدنبي إنا أسترطاء أو سقر سعودية كوسما يساوي ويكفضوا الطهي تم وحي لا لرتاهي وحلي استهتارك يعني وحويان سريك الآن إن هذا وحبه أبي يلمبا ويكدر انتهاي مرك ويكدر انتهاي حيالها لا يابك لو حكم إذا أو سوكر لهذا السوق مالي بوحبي كوكرديان مالي بوحبي كوسودران مالي بقاب بالوقدرها مدبم ميدا كدم بيساك سيدران فحشي يحمان تكم موقتي لقن حمدا يوحى كالسعودي هذه يابيس مركا واجي هوري وحبد أركي شريبة محوها هاي محوها هاي وحن لي هذول مركنا يهديها لقن كدهاني وحر حلان قبلها دانتيني madaxana way u duubi jireen luqunta iyo gacmaha ay iska bambanaadeen iyo intan iyo marka qaar hadda waxayba keeneenba ilaahay amarkii gabdho timuhu u tidcan yihiin oo timuhu baqaawayn waxay ka wadaan mutaqana dumarkii hore oo dhaantayn jiray qaar baa timuhu isaga tidcanaan jiray oo iska banaanaan jiray marka waa gabadh muslimada oo timihii iyo luqunti iyo wixii la sula iyo dhul jidku meesha ugu quruxsanaa oo dhan intay rag loo soo istaagtay waatantir shawaka waa baqaawanahay marka maalinba waxba la soo wadaa maalinka dambana ila waxa la doonayaa waxan kadaata in loo yeelo soo jiidasho loo yeelo in la suugeeyaa la doonayaa oo maalinba maraq cusub iyo yani wax way muxuu ahay milix cusub iyo hawl cusub loo yeelo wixii hore waa laga xiisa dhici شيطانكي بقى مركب مالين بتلابه الله سيقاده هي مالين بميل بوسي وذا مالين بقيب بوسي دري وحكم إذا لبتوين كذا وحكم إذا إضاعة وقت اللومينتا يو جهدك يو وقتك اللومية أما هالنقطة ديارينتا وحلقات يو ديارينتيس وقت بقاتها كوحدا إسلطهم يسا إن ليسوسو أوروريو إسهلان وقت بقادتها إن لغوتها وبرتو قابك وحلوتش لهيو إن لا دياريو تيمم كاس إن الإسهلان وروح بالمهمة صلى الله عليه وقت بقادته فلنت وقت بقادته جماهير تيددوينها متابعين ياي وقت بقادته أنت وقت كلمية وحاس أو وقتها هدي أنت الله أوروريو وح نفع للجلين لها ومدة واحد بدن بوتري لها يا بيروس صاري لها ودموه هرمري لها ومد بوحبري لها وين بقى كيمان لها وقت ماشى ومدة كقلمية كداونية كسمينية كديارين هي كل وقت كل مريا وقت قلنا سيدي سبب وبني آدم كوا وقت واحد ومدة كلا واحد كفي عنته هي سيدي وقت كذا وقف إيدي ستو ومدة واحد كلي ذاتا أو يقدم بيسا سيدا أي ومدة كلا واحد كلي ذاتا لومين وقت كذا أي كل مسوحي لها النفع كيف هيدا الهاي وحكم إذا لبتوين كاسي أي لا هاي دائرتي يو لأن يردي ويلش يضمر بوحبران رجع يضمر بوحبران لها مستقبل الإسلام يقولون مستقبل يالن لها
dadka iyo dalka iyo diintana mustaqbalkeeda wax badan ku biirin lahaa ayaa waxa looga dhigayaa dayasho iyo wax inay raadiyaan oo ay iyaga laftoodu noqdaan oo kale sidaas oo kale noqdaan wax himilo ah oo daayartii lagu barbaariyo ku daydaan gaar ahaan markii dhalinyarada iyo daayartu ay arkaan wiil iska dhalinyaro ama gabadh iska dhalinyaro meelaha taagtaagneed oo iska rafaadsanayd oo cilmi meel geeya iyo aqoon meel geysa iyo dadnimo kale meel uu ku gaadho waayay oo maalmo gudahood ama sanad gudihii noqday najmi xidig xidig gogol cagaaran loo fidiyo oo garoomada lagu soo dhaweeyo oo xafladaha iyo maharajaanaadka loogu yeedho oo xoolo kasba oo magac yeesha oo la yiraahdo hebel dhaanta la dhahay hebel dhaanto miskiin meelaha taagtaagan buu ugu had aqoonu meel ku gaadhana ma lahayn kartigu meel ku gaadhana ma lahayn dadnimo kale meel ku gaadhana ma lahayn laakiin waxaanu intuu waxoogaa muxuu ahay ku caanbaxay iyo waxoogaa dhaqaalaana ka sameeyey magacna ka sameeyey waa la bartay waka madaxdii iyo dawladihii baa muxuu ahay goosha u fidinaya dadkii dhalinyaradii markay arkaan yaryarka ahaa dhalinyaradii yaryarka ahaa ee soo korayay markay waxa soo kala arkaan ma waxaad ku karaysaa adiga wax weey 12 sano tacliin garaac oo ilaa secondary ka bax 4 sano jaamacad garaac 3 sano master garaac 4 sano dambana PhD garaac miyaad ku kari oo sheekh intaas oo maxaa raadinaya soo xoolo ma oo waxoogaa dhaanta amaan garaac oo hal sano ku taajiro ku leh xoogaa anigu midhaha haddaan isku hagaajiyo waan keeni karaaye gabdhana meelaha waan ka urursan karaa intaan dhaantada galo haddana waxaan aan raadinaya jidka dheer u marayaba sanadii 2 sanaaba lagu helaaye maxaaba jidka dheer i marinay wataan hadda idin sheegahayo markaan marayay kilka aan magaalooyinka marayay ciyaalkii yaryara ee la rabay inay madrasooyinka iyo iskuulada iyo goobaha tacliinta iyo inay wax bartaan ayaa waxa lagu ababiyay dhaantada ku tartama waxay gaari doonaan xageysa dhaanta dad gaarsiinaysa afaway marka dad badan oo daayartii ah ayaa ku lunsan oo meesha isle wax ka gaadha muhiimadii ay ahayd in muxuu ahaayay ay nafciga ku keenaan iyo jidkii saxsanaana kaga lumay waxa kamida oo waxyaalaha shariicadu ay diiday oo dhaantadu ay xambaarsan tahay waxa kamida zina ku jirta zinadu waa noocyo zinada inaga waxaan u naqaanaa labada xubin ee taranka oo isgala Soma laakiin shariicadu waxay u taqaanaa zinada taa zina waa la yiraahdaa zinooyin kalena way jiraan zinooyin kale say ku yimaadaan nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiis sahih muslim ku yaana min xadiis abi hurayra rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam kutiba ala ibn adam nasiibuhu min az-zina ibn adam ka waxa korkiisa lagu qoray qaybta uu zinada ku leeyahay mudrikun dalika la mahala waana ku dhacaya laga maarmaan markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fal aynani zinahum an-nadar labada indhood zinadoodu waa fiirada iyo daawashada wal udunani zinahum al-istima' labada dhagoodna zinadoodu waa dhageysiga wal lisanu zinahu al-kalam arabkana zinadiisu waa hadalka wal yadu zinaha al-batshu gacantana zinadeedu waa taabashada iyo qabashada wal rijlu zinaha al-khuta lugtana zinadeedu waa socodka wal qalbu yahwa wa yatamanna qalbiguna wuu dooni oo wuu jeclaan ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه intaasi markay isbiirsadaan oo hawsha soo qabtaan xubinkii odayga ahaa ee hawshan qaban jiray oo xubinka taranka ah ayaa marka ama rumayno fulin ama uu diidiyo uu beeninaya maxaa ka hormaray marka soo zinooyin badan kama hormarin ishii baa ka hormartay gacantii baa ka hormartay afkii carabkii baa ka hormaray waxa ka hormaray lugtii oo loo socday waxa soo dhan qalbigii baa ka hormaro isaga laftiisa hawshii jeclaaday oo doonay
intaas markay zino soo dhacdo tii weyneed markaas ay imaanaysa Soomaali marka wiilashan dhalinyarada iyo gabdhaha isla dhaantaynaya soo isma daawanayaan mise indhahay qabanayaan indhahay isku qabanayaan way isdaawanayaan way istaabanayaan way isu soo lugayeen waa dhalinyaro oo qalbigooda waxba ku jira shaki ma laha Soomaa annaga dhihi mayno zinadii weyneyd bay galeen oo ruux muslima inaad tiraahdo zinawdii weyneyd buu galay ma sahlana cadaynkeen baa lagu dhihi maadaa arkaya afar markhaati oo rag ah oo hawshu markay dhacaysay waan mala awaal ahayn oo waan la isdul saarnaa ahayn oo waxba dhaqdhaqaaqay aan ahayn oo labadii xubin baa si dhab isugu jiraan arkay ah afar saw markhaati kacda keen haddii afartii la waayo saddex kaliya haddii la helo xataa afar haddii mid la waayo saddex la helo saddexdiina waa leedin karbaashi 80 jeedal baa leedin ku dhufanaa cirdiga iyo sharafka ruuxa muuminka sida loo ilaaliyo taa macnaheedu waxa weeye gabadhu way qaawan tahay ama yaani dhaantay ku dhex jirtaa ama meel heesay ku jirtaa ama jirkeedu ma asturna macnaheedu ma aha zinadii weyneyd bay gashay ma aha ruuxii qaabkaasi u yiraahdana waxa weeye waa dambi weyn waa qadaf laakiin tan ka hadlayna waxa weeye intan ka horeysay muuqata ayay shariicadu waxay ku tilmaantay inay iyaguna zina tahay intan ka horeysay shariicadu sheegtay ayay shariicadu waxay ku sheegtay inay tahay zina waana dunuub kulligeed waay waana ta quraanku qayb kamida tilmaamay waay marka ilaahay uu lahaa tabaaraka wa tacaala wala taqrabu zina zinada ha u dhawaanina ha sameynina lama dhihin soo farq uma dhaxeeyo ha u dhawaanina macnaheedu maxay tahay ishi laaba وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن غض البصر تابشدي الرقي الدمر كأجانب تكلا خلوذي إسلقوني نقشدا سمارت وحاسو دنبا لسودي دي وحاسو دنبحيتا وحين داب شيء وزيندي سيسا أدعين بالإلالينيا لا تقربوا هودا واننا معنا ساسوي وحن كينا هي أردن كفوق هذا وحن كينا يوردن وأكون مركا حديثك هذا الشيء يوم مركا وحكم إذا وحيالها أي حنبار سنة وحكم إذا الدياثة وذهاب الغيرة تيوثنمو إيو قيردي يفعل الذي وأمد كلمته روح مسلم كأه وإنه ليه فعل ليه وإنه كفعل الله حمانتا إهل كيسا قبله كيسا حاسس كيسا ولاليه قبلها مسلمات كحتا وإنه كحنون صدو هدي فعل لدى اللوايا أو حمانتا إهل كسامين يرالي لغا نقض أما أين دبا كوكو هاي نمبا نبي قوحو كتل ما بينا يتاهي النوع ديوث نماء واي ديوث نماء اللغة العربية الديوث هي الديوث كصومالي دو كالدوين صومالي دو الديوث وحي وتقانا وحي وتقانا كوان دبضي استقدتك صوما ديوث كاسان رحنا صوما مركز الديوث كاس حديث كوكاه الله كاما ديوث في اللغة العربية وحلي لهذا نبي قاقي حي وانينك إهل كيسي ريل كيسا حمان ترالي قوقا أو حبك قبين قبله زي الدمر كيسي ولا ليه الدمر كإهل كوحي إنه يسميها حمان تسميها أما الرقوي ما دانو إسكالا باشالان حبك ما قبو نين كاسو نبي كنت لما ديوث نبيه صلوات ربي والسلام عليه بحالة دونيا إنه روحه غير ليه محارمته إنه كغيره إهل كيسي إنه غيره ومد الدمر كوديا قبله إنه حمان تكلا غيره تاسال الدنيا حديث أبي هريرة واكيها سعد بن عبادة وكورنا يوحر يا رسول الله سعد بعدها يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتيه بأربعة شهداء رسولك إلهي وهدان حاسك نين أقو إبادو نين كاتهابا ما يميا إلى أفر مرخاتي أن كانوا ما أفر مرخاتي بان رادية يوضو إسلام دي لغا شقي سنة يوير وأفر مرخاتي الرادي بهذه هذا مركزوا النبي يقول صلى الله عليه وسلم نعم ها أفر مقاتل هذه مركزوا يقول كلا والذي بعثك بالحق
إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك ما يبي رسولك إلهي بان كل نارتي سيف بان كل دق الهبل ولي بالسيف تدي عدل عقوم رفتانه وأكو كلا شر الهبل حيث مرخاتي الرادي فرير كي يجيب أبو لقول حجراي ورجع رسولك صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم وقاس كينو هذا الكوليه دقيست من النبي صلى الله عليه وسلم إنه لغيور وأنا المصير بدن وقير بدن وأنا أغير منه السجن أنا كقير بدن والله أغير مني أنا إلهي بقى غير بدن سمعت يعني وحوي بالشد وإني غير لهذا غير معنى وحوي وإني كفع الله توي كم صيرته حمانته قبلها يضمرك يمحوها هاي إهلدودو أي جليان وإني كحماته كدبنا وحي كقبن كرتو وإني كقوتوي معنا حديثك متفق عليه لكن لفظي هذا أنا أخريني مسلم بايسكالي حديثك كلا النبي صلى الله عليه وسلم سدح شندا مقالان ولي قلت إلهينا ما في ريمانة القيامة العاق لوالديه روح لودي سوى العاق كوا والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال هوين إذا الرجل يسوء كيسيسا الرجل يسكو شبه هذا إيوه والديوث إيه نينك الديوث كا وعلى الديوث يا واي رسولك إلهيو رواية للنبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي الذي لا يبالي من دخل على أهله وأن كان ضنك لهين أهل كيس عدة أسوق ليس قوليه سي عروس يدمر كيس رواية لو حيهد الذي يقر في أهله الخبث أما خبثة حمانة أنتو أهل كيس يكوارك قوليه سيو نيك سيدا سجد أيون ضنك لهين كاسو يا النبي صلى الله عليه وسلم مركا قبلها سأدر كيسان ويلش وعيارتك كتمان أيان waxaa jooga walaalahood baa jooga aabayaashood baa jooga adeeradood baa jooga xigtadoodii baa joogta bal waxa laga yaabaa inay meesha fadhiyaan oo iyaga laftooda ayba ku qoslayaan ama ay daawanayaan meelaha ka daawanayaan war waa tii qaraabada inay heblaadahay war inay heblaada soo inaad ka xubaato maahan bulshada markay sida ku marto waxani ay sida marka ula qabsadaan bulshada waxa ka dhimanaysa marka قيردي باك دمانيس صومالي waxay yiraahdaan doofaar baa maxay loo cadaabay doofaar baa ficil la'aan loo cadaabay dhax Soomaali ficiladu marna way fiican tahay oo marka shariicada waafaqsan tahay maxaarimta lagu ilaalinayo marna way khaldan tahay oo marka shariicada khilaafsan tahay naam gabagabadii baan joognaa waxa kamida dhibaatooyinka ay keento ciyaarahan dhaantada iyo heesaha iyo yaani wax weeyaan munkaraadkan banaanka loola soo baxo dhibaatooyinka ay keenaan waxa kamid bulshada ku faafa masaa'ibto inay bulshada ku dhacdo gaar ahaan markii inta banaanka loola soo baxo laga aamuso oo bulshadii ay noqoto mid sameynaya mid daawanaya iyo mid ka aamusan markaasi musiibada timaade xaq Ilaahay ka timaada way camimaysaa bulshada xadiidkii Qays ibn Abi Hazim Abu Bakr as-Siddiq baa wuxuu akhriyay aayadan ya ayyuhalladhina aamanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaytum mu'miniintiyo naftiina hadaad ka adkaataan wixii lumadan kama lihidin idin ma dhibayo marba hada adugu xanuunto ayadaas akhrinaysan buu markaas wuxuu yiri inna an-nasa yad'una hadhihi al-ayata ghayra mawdi'iha ala yad'una hadhihi al-ayata ala ghayri mawdi'iha dadku ayada meesheedii meel aan ahayn bay dhigayaan wa inni sami'tu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam anuguna waxaan maqlay rasuul Allah dhahaye inna an-nasa idha ra'aw adh-dhalim falam ya'khudhu ala yadayhi أو قال المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقابه بالشدو منكر كي حمان تمركي أركته وبناك أصبح وأي وحكا قبن ويدو كهل ويدو إنكري ويدو عقوبة تماد إلهي وكسما ووذا قارسية منكرات كان فافصنة وحبا لقى قبنين يلقى آموسية إيميل والبا مركي وحوقا النبض يبروا أقل هلا بسيسي هذا هذا الصومالي مركا ضو فيرسو waagi colaadu ay jireen oo dhibaatooyinku jireen oo leesleynahay oo dhalinyaro muxuu ahaay habeenkii meelaha tumato oo xeebaha tago oo ma la arki jirin Sooma nabadii baa qarimatay la kala carar wuxuu markii nabad la helo oo barwaaqo la helo munkaraadka soo bax munkaraadka hadii la inkiri waayo musiibo caama ka dhalata waana sunna Ilaahi waay cudurra dhalan waxa iimaanaya abaaro waxa iimaanaya fatahaado waxa iimaanaya colaad waxa iimaanaya dhibaatooyin waaweyn oo bulshada wada gaadha iimaanaya maxay ku iimaanayaan
waxay ku imaanayaan munkaraadkan qaarna sameynayaan qaarna daawanayaan qaarna ka aamusan yihiin sidaas daraaddeed waa laga maarmaan in hawsha iyada iyo wixii la mid ah bulshadu ay tiraahdo maya war daaya war joojiya war inaga daaye waxaa ka mid ah waxyaalaha muxuu ahaayey ku jira dhaantada ku jira been iska cad baa ku jirta waxaan ay daldalhayaan dhalinyaradu rag iyo dumarba waa beentuna ilaahay dunuubta laga galay uga weynta weliba waa been yani waxa weeye loo ekeysiyey sida runtoo kale looguna luuqeeyey qaab dadka soo jeedanaysa inay beenta waxaad ku garanaysaa ninkan laaqinaya sida orgigoo kale muxuu ahaayey ku haya waan ku raadiyey intaasaan ku daba socday muxuu ahaayey wadnaha i belbelay xalay ma seexanin sakaraad baan ahay isbitaal baa lay dhigay adaan ku baadi goobahayey ma runba ya ma baruntiiba waa beenaale wax ilaahay jiroo kale xalayna ma seexan waayin wadnana ma belbelahayo gabadhana waxba kama rabo uma socdo weligii muusan arkin xataa guur kama rabo laakiin meesha waxay la gashay un hawshaa la gashay soomaalit sidaas daraaddeed gabay waa ka ilaahay ku sheegay washucaraa'u yattabicuhum alghaawuun alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun shicirka waxaa la yidhaahdaa hadal kasta oo tixa oo taxan shicir baa la yidhahdaa adigu haddaad doonto ama nooca muxuu ahay gabay ugu luuqee ama hees ugu luuqee ama buraanbur ugu luuqee ama muxuu dhaanto ugu luuqee adiga saa doonto laakiin hadal kasta oo munadam ah shicir baa la dhahaa saas daraaddeed kulligay way soo wada galeen ashucaraa'u yattabicuhum alghaawuun dadka inta lunsan baa horta raacda dad baadiyay soo lunsan baa raaca alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun soomaada arkin tog walba inay ku wareersan yihiin meel walbuu galaya meel kastuu ka hadlaya wax kastuu ka hadlaya waana wareersan yahay wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxayna samaynayninna way ku hadlayaan waxaan uu leeyahay waxbaan kala tuurahaya waxbaan samayn cirkan ka soo degaya uu leeyahay waa beenaal waxba ma samayn karo yani waxaynan samaynayninna way ku hadlaan buu leeyahay tabaaraka wa tacaala ibn cabbaas wuxuu leeyahay fii kulli lagwin yakhuuduun marka wax weeye beentan iyo kadibkan iyo waxaan la daldalahayo oo haddana muxuu ahaayey fuxshul qowlka ku jira oo kaba sii daranoo غزلكن iyo cishqigan iyo waxaan la daldalay shahwada hadana kicinaysaan soo marnay iyo beenta iswataay ayadana waxay kamid tahay muharramaadka shariicada khilaafsan ee ku jiray kamid gabagabadii waxyaalaha ku jira waxa kamid ah in iyaguna ay ka mashquulaan dadkana ay ka mashquuliyaan ilaahay ujeedadu u abuuray iyo waajibaadkii diinta daa'irtana ay lumiyaan ilaahayna quraanka kariimka waa ka inoo sheegay ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين dadka waxa kamida qaar iibsada ama qaata waxyaalaha waqtiga la isku dhaafiyay maaweelada lagu sameeyo waxyaalaha maaweelada lagu sameeyo heesii baa soo galaya dhaantadii baa soo galaya waxyaalaha kale maaweelada oo dhan baa soo galaya waxaasay qaadanayaan iibsanayaan la wareegayaan maxay u sameynayaan liyudilla an sabilillah si ay jidka ilaahay dadka uga lumiyaan bighayri ilmi la'aan wayattakhidhu zuwan ilaahay ayadkiisana jees buu ka dhiganaya ulaika lahum adabun alim al'adab ihanayli Abdullah ibn Abbas wuxuu leeyahay nazalat fil ghinaa'i wa ashbahi ayadan waxay ku soo degtay heesaha iyo wixii lamida oo dhaantadu kamid Abdullah ibn Abbas baa dhahay Abdullah ibn Mas'ud wuxuu leeyahay ayadani waxay ka hadlayso huwa al-ghinaa walladhi la ilaha illa huwa ilaahay baan ku dhaartay ayadani waxay ku saabsan tahay waa heesaha saddex goor buu sida ku dhaaranay Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu warda sidaas daraadeed ayaa wax kasta oo ka mashquuliya ilaahay wixii uu ku abuuray cibaadada ka mashquuliya oo salaada ka mashquuliya oo barashada diinta ka mashquuliya waa lahwul hadiith mararka qaarkood waxa soo galaya mahrajaanaadka la isugu yimaado dhaantooyinka iyo heesaha iyo la isugu yimaado marmarka qaarkood waqtigii salaada soo galaya bulshada dhan ee meesha ku jirta qaacada ku jirta waxa laga yaabaa hal mid inuu salaad u bixin oo salaadii ku dhaafto
ها المهم waxaan hadda sheegnay waxa weeye waxay ka badan tahay 20 mukhalafo oo shariicada khilaafsan ayaa ku jira iyo ka badan maadaama intaas oo munkaraad iyo ka badan oo sheegin ay xambaarsan tahay munkaraadkaasi iyo kuwa ka waaweyn dad waxa jira u bareera ama arsaaqdu ka gashay ama shahwadu ay la jiidhay ama shaytaanku duufsaday ama naftu ay duufsatay wayna jiri jireen dad noocaas oo kala ayagana waxaan leenahay Allah soo hanuuniyo oo Ilaahay tabaaraka taala munkaraadkan iyo xumaantan ay banaanka ula soo baxeen ummadana ku luminayaan Allah tabaaraka taala ha ka hanuuniyo intii ku khaldantay oo dambi ku gashayna Soomaali badankeed waa ku gashay oo waa mid muxuu ahay daawanaya iyo mid muxuu ahay u bogsan iyo mid sameynaya iyo inta inkirsan ee diidan baaba yarba marka إلهينا تبارك وتعالى ذنوبتنا هو ضعفه وحمانته إلهي تبارك وتعالى هينجا إلاليو إيجنا إلهي تبارك وتعالى توبته هو فتشيو إننا وحى إن لجدبون كبل شأها وحى إن لجدبون تاكل يمه منكرات كصوب حياة سما كتجتان كدت كسميني أي كتجان ومسألة بعضه مسألة كلنا وحوي إن وحن اللي أجاده إنه يوحل دنا وشرع هذا خلاف صنع دبعت له انت كفتنيسن ان بدن oo kamid waxa laga yaabaa in gadaal Ilaahay ka soo hanuuniyo dad fara badan way dhacday in Ilaahay soo hanuuniyay laakiin waxani markii laga aamuso wuxuu noqonayaa munkar caado noqday oo la banaystay oo la xalaashaday buu noqonayaa waana markaas uu ka sii daran yahay marka tawfiiqda Allah ina waafajiyo Ilaahayna tabaaraka wa taala xumaanta Allah inaga ilaaliyo samaanta iyo iimaanka iyo khayrka iyo khaatimo wanaagsan Allah inagu dilo ummadda muslimka intii lunsan Allah soo hanuuniyo hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam